gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex Rashiid Axmed Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa bulshada gobolka Maroodijeex ugu baaqay qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka qaranka oo maanta oo Sabti ah si rasmi ah uga bilaabantay gobolada Togdheer iyo Maroodijeex. waxaan idin farayaa oo aan ka codsanayaa oo aan ku dhiiri gelinayaa oo aan ku dardar gelinayaa oo aan ku baraarujinayaa in aad qaadataan kaarkiina xaq u leedihiin ee masiirkiina ku ilaalinaysaan ee ugu hiilinaysaan naftiina ee ugu hiilinaysaan gobolkiina ee aad ugu hiilinaysaan qarankiina. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex ayaa si cad u sheegay muhiimadda ay leedahay qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka qaranka wuxuuna bulshada ku dhiiri geliyay inay ka faa'iideystaan qaadashada kaarka codbixinta oo socon doonta muddo ku siman 7 maalmood. isagoo mudane Rashiid Axmed Maxamed ka hadlaya qodobadaasi ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa sidaynu wada ogsoonnahay kaarkani waxa weeye kaarkii aad madaxweynihii aad ku aamin lahayd qarankaaga naftaada ubadkaaga waddankaaga aad ku dooran lahayd ee aad kaga dooran lahayd tartamayaasha kale ee ku tartamaya ee musharaxiinta kale ah ee saddexda musharax ee tartamaya aad kaga soo dhaxbaha lahayd ee aad kaga xulan lahayd kaad ku aamini lahayd masiirkaaga nafeed masiirkaaga gobol ahaaneed masiirkaaga degaan ahaaneed masiirkaaga qaran ahaaneed. Madax Ismaaciil Xaashi TV Hargeysa.